in ku dhow 10 saacadood ayaa maanta wadada Maka al-Mukarrama iyo qaybo kale oo kamid ah magaalada Muqdisho waxaa ka socday dibadbaxyo ay sameynayeen wadayaasha mootada loo yaqaan bajaajta kuwaas oo ka cabanayay in laga joojiyay isticmaalka wadada Maka al-Mukarrama wadada wadnaha iyo wadooyin kale oo kamid ah kuwa ugu mashquulka badan ee caasimada ku yaala gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu la kulmay boqolaal kamid ah wadayaasha bajaajta ee dibadbaxa sameynayay isagoo ku wargeliyay in wixii hadda ka dambeeya ay fasax u yihiin isticmaalka wadooyinka laga mamnuucay waxa uu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho sheegay in gacanta lagu hayo askariga rasaasta ku furay dibadbaxyaasha taliyaray waa mahadsantii markoowaad marka labaad intii dhimata Allah u naxariisto askarigii saaka qofka dilana waa xiran yahay oo dhibka dhacay marka waxaan rabnaa marka koowaad shaqada aad qabataan iyo danta yar aad u adeegtaan iyo wadooyinka aad martaan shaqo fiican ay dalku haysaa horta waa mahadsantihiin mudaharaadkiina iyo soo bixiina waxaa la rabaa inuu ahaado mid nabad ah oo wax dhibaato aanan keenin sababtoo markaa nabad wax ku samaysaan nabad wax ku helaysaan hay'adaha amnigana waxaa la rabaa inaad la shaqaysaan annagana waxaa naga go'an hay'adaha amniga inaysan shacabka dhalinyarada aan la dhibin cid alle ciddii dhib idiin geysatana ama ha noqdaan Soomaali ama ha noqdaan Amisom waa la xisaabtamaynaa annaga idinkaa idin matalnaa sidaas darteed dhalinyaroy waxaan rabnaa labada arin ay soo socoto hadda waxaa ila joogo labada gudoomiye degmo ee degmada Hodan iyo degmada Waabari labadaas gudoomiye waxaa la rabaa dadkiina gaadiidka wato qof kasto idin kamida ee gaadiidka wato mooto bajaajta wato inuu horta degmada iska diiwaan geliyo magaciisa geeyo taargadiisa geeyo dhib kasta oo loo geysto si loola socdo hadda waxaa midaas darteed sababtoo ah markaa ka diiwaan gashan tahay oo dhib ku gaaro dhibkaaga meelaha u sheegtida kow qabtaa shakhsiyan ka hadlaa midda guud oo soo hartay wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan waa isticmaali karaan wadooyinka waa mari kartaan mootooyinka bajaajta loo yaqaan ayaa waxa ku shaqeysta xoogsato badan iyadoo ay ku tiirsan yihiin nolosha qoysas badan oo Muqdisho ku nool Nur Saciid Taalid raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho